Inka Mareykanka iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa labaduba ku sugan magaalada Ankara Turkiga iyagoo isku dayaya inay joojiyaan weerarka Turkigu ku eekeeyay dalka Suuriya. Mareykanku wuxuu ku hanjabay inuu cunaqabateyn dhaqaale dheeraad ah uu saari doono Turkiga haddii aanay yeelin dalabkooda ah in dagaalkaasi ay joojiyaan. Toddobaadkii hore madaxweyne Trump waxa lagu eedeeyay inuu Turkiga u ogolaaday inay weerarkaasi qaadaan iyo inuu khiyaameeyay waliba Kurdiyiinta oo xulafo lahaa dalka Mareykanka. Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya. Xaalkan ayaa ka taagan dhulka. Xogaga Kurdiyiinta ayaa difaacaya magaalada Ras Al Ain. Waxay jidadka kula dagaalamayaan maleeshiya xulafo la Turkiga kadib markii maalmo hawada looga duqeeyay si loogu diyaariyo dhulka. Waa goob istiraatiiji ah oo bartanka uga taala marinka uu madaxweyne Erdogan doonayo in uu u bedelo aag ammaan ah. wuxuu ahaa go'aankii madaxweyne Trump ee inay ka soo baxaan waqooyiga Suuriya midkii wadada u xaaray weerarkan Turkiga. Militariga Mareykanka ayaa sii baxaya iyadoo shalayna ay baneeyeen meelo yaryar oo ay u sii kaceen xarumo waaweyn. Laakiin hadda Mareykankii waa uu soo laabtay. Markan waa ergad diblomaasi oo Ankara timid. Madaxweyne ku-xigeenka Pence ayaa waxa uu ka shaqaynayaa xabad joojin iyo inuu dejiyo buuqa ka dhashay Washington ee uu sababay go'aankii Trump waxa uu ku adkaystay inuu joojinayo weerarka Turkiga. Wuxuu warqadan caadi ahayn u diray madaxweyne Erdogan oo uu ku boorinayo heshiis Kurdiyiinta. Ha is adkayn nacas ha noqon ayuu Trump u qoray Erdogan. BBC-da waxa loo sheegay in Erdogan uu warqadaasi diiday oo uu qashanka ku riday. Turkiga ayaa ku adkaysanaya inay la dagaalamayaan argagixisada Kurdiyiinta ee Suudinta, laakiin waxay abuurayaan qaxooti hor leh. Koox xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysa in 300,000 oo qof ay barakaceen toddobaadkan. qaar badanna waxay gabaad ka dooneen iskuulo iyo xeryo. laba dumar oo xaamilo ah ayaa noo jooga. caawinaad ayaan u baahannahay. sideen wax ku helnaa? qabowgii ayaa yimid. 9 carruur ayaa ii joogta. xaggeen geeyaa? rajalaan ayaan halkan ku joognaa. xaaladdu way xun tahay sidaad arki karto. madaxweyne Erdogan wuxuu haystaa taageero gudaha ah. Turki badan ayaa aaminsan in dagaalyahaninta Kurdida Suuriya ay halis dhab ah oo amni ay ku hayaan. iyagaas ayuuna dhageysanayaa halkii quwada shisheeye uu ka maqli lahaa.